booliska magaalada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa soo bandhigay haweenay iska dhigi jirtay nin oo muddo qabtay laba haween ah. Saldhigga booliska magaalada Gaalkacyo ayaa lagu soo bandhigay haweenaydan oo sida boolisku ay sheegeen wadatay bistoolad iyo qalabka dumarka ay isticmaali jirtay. Deeqa Cabdullaahi ayaa lagu sheegay magaca haweenaydan balse boolisku waxa ay sheegeen in magaca Deeq ay ku joogtay magaalada Gaalkacyo ugu dambeyntiina la soo qabtay. Saraakiisha booliska Gaalkacyo ayaa sheegay in baaritaan ay sameeyeen dumarka booliska in lagu ogaaday xaqiiqada ah in qofkani uu yahay dumar. saacadu markay ahayd 10kii barqanimo ayaa waxa la soo qabtay nin lagu magacaabo Deeqo oo aad arkaysaan Deeq la yiraahdo magaciisa ninnimo uu ku sheegto laakiin magaciisa dhabta la yiraahdo Deeqo Cabdullaahi Aadan oo in muddo magaaladan ku noolay oo matalaysa inay nin tahay dumar badan xiriir la yeelatay sida aragtaan hubaysan magaaladan muddo badan dhexmaraysa iyadoo nin ah waxaan ku guuleysanay inaan helno muddo dheer ka bacdi inaan gacanta ku soo dhigno Deeq oo magaciisu Deeq yahay baaritaan dheer ka bacdi waxaan ogaanay inay tahay qof haween ah ujeedada iyo danta ay kala hayna wali hadda baaritaan bay ku jirtaa waxaan noo cadeeyay ciidanka booliska haween baa ku jira baaritaan ay ku sameeyeen baa waxa ka soo baxday inay tahay qof haween ah waxay u isticmaali jirtay nin ahaan oo qalabka ninkay ka dhiganaysay dhexda ugu xirnaa markii baaritaanka lagu sameeyeen waxa ka soo baxay in waxaan ay nin ahaan u isticmaalaysay iyada waa su'aali kartaan inay dumar tahay aniga hadda afjooga lama adeega iyada waa joogtaa. Deeqa oo dhankeeda la hadashay warbaahinta ayaa waxay xaqiijisay in ay tahay dumar isla markaana bistoolada ay wadatay in ay ku ilaalsato goob meherada oo furneed. inta lagu soo yeeray oo ay jidda dumar baana qofku waxaan watay dukaan baa leeyahay dukaankan ku ardiysto meel koondare ah qofna gubadiraano qofna wax kuma yahay gabadhan gabar cunug iyo ayadoo naftooda halidaysa baan gurigeeda keenaan. Arrintan ayaa dadka ku nool gudaha magaalada Gaalkacyo si weyn u hadal hayaan oo ay la yaaban yihiin sheekada ku saabsan haweenaydan iska dhigaysa ninka ee lagu qabtay gudaha magaalada Gaalkacyo. Sidoo kale Soomaalida ayaa baraha bulshada aad ugu faaqidaya sheekada ku saabsan haweenaydan ninka iska dhigaysay ee lagu qabtay magaalada Gaalkacyo. Shuuke aadan guray Gaalkacyo.